Siyaasi Cabdilaahi Ahmed Maxamed oo waraysi gaar ah siinayay Saab TV ayaa ka hadlay wada hadaladii u dhaxeeyay Soomaaliya iyo Somaliland kuwaas oo muddooyinkii ugu dambeeyay soo jiitamayay isla markaana aanay wax natiijo ahi ka dhalanin waxaanu natiijo la'aanta iyo dib u dhaca wada hadaladani ku yimi madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya waa niman deegalmudug iyo la dagaalamaya iyo Jubaland dagaalkaasi ku jiraan dagaalka intay ku jiraana hawl kale iyo horumar kale midna uma jeedaan inkastoo Somaliland mar walba la dagayo oo iyadu dagniinka anigu dib ma fahmay dadka la dirayo noocada ay yihiin oo kale waxa weeye waxan in lagu soo diro adigu heer agaasima lagu soo diro oo adigu aad ku qanacsan tahay dawladda xumo waxa weeye waan baahanahay waqtiga loo macuno wax badan ba Soomaaliya naga xidhan waan ognahay hantideena iyo dhanba haysataa sharciyadeena bay haysataa dhibaato hore noo geysatay mid dambe hadda inoo geysato hadda inagu wada waxa soo dhan furdaamin bay u baahan yihiin waan ognahay laakiin furdaaminta ay u baahan yihiin haddana inaynu wax walba u galno oo meel walba in u marnaa de ma aha waxaan u baahanahay xaq baynu leenahay xaqeena inaynu soo dhacsano inagoon cidna uga gabanin inagoo si sharaf leh oo wanaagsan oo milgale u doodeyna cid walbana oo la balamayna oo la kulmayna ayaan u baahanahay shirka markaasi shir lagu fashilmay buu ahaa si loo soo qaban qaabiyay baa khaldanayd xamarna de runtii dhibaato aad u weyn ayay ka geysatay inaguna in waxaas kale ka taxadarno ayay runtii ahaydo waxay ahayd in markii wasiirka arrimaha dibadda direyno in wasiir kale uu qaabilo oo ay arintu sa ahaatay ahayd laakiin agaasimo in loo soo diro wasiirkii oo aynu aqbalno Cabdilaahi Ahmed Maxamed dhinaca kale waxa uu ka hadlay arinta dhoofka xoolaha ee ay dawladda Sacuudigu sheegtay inay ganacsatada reer Somaliland waraaqda dhoofka xoolaha ay kala xidhiidhaan dawladda Soomaaliya waxaanu arintani ku sheegay mid ka timi dhinaca Somaliland gaabis kaga yimi horumarka dhinaca arrimaha dibadda waa dhibaatooyinka jira weeye waxa weeye been cashiyada wadaxaha kuma dhalan arintan waxa weeye in warqad Sacuudigu soo saaro oo inaga joojiyo yiraahdo xamar doonto warqada shaqa ka horreysay oo waxyaalahan kulmiye ku dhaliilina weeye siyaasaduna hilaadin bay u baahan tahay inaad isweydiiso maxaa soo socday u baahan tahay inagu markii la isqabtay ee Carabi ay kala jabtay hiilka waxaanu siinay Imaaraadka iyo Sacuudiga siinay inaynu halka kamira gaadhno oo kamira dhalana bay ahayd maanta aynu badeena saxiixinay aynu dibul u yeedinay aynu halka galeynay kadibna markii dambe hiilkii Carabi isqabatay aynu iyaga raacinay inaynu wax ka dhalina bay ahayd waxay ahayd waxa ugu weyn aynu ku tiirsanahay xoolaha way wala garanaya waxay ahayd inaynu Sacuudiga u marno Imaaraadka oo aynu wax isku darsanay bay ahayd inaynu shaqo xoog halka ka qabanna bay ahayd inay maanta inooga farado dhubnaadaan qolada oo ay markii hore kala fogaadeen waxay sheegaysaa siyaasadeena bay sheegaysaa dibadda ee faashilka in badan ka sheekeynay dhibaatadaas jirta dhibaatada waxaan u baahanahay tan oo kaliya ma dhibaatooyin badan oo noocaas inagu soo socda haddayna ka hortagin waraaqa cascas oo khatara ay nagu soo socda lucbadana waxa loo baahan yahay inaad adiguna waraaqahaaga ciyaarto inaad ka hordagto inaad ka fikirtaa loo baahan yahay arintan hawadu markii nagu dhaceysay iskama dhicin in qaataan waxa weeye geemka markii la ciyaaray way muuqatay inay koobeen ay xageeni ka dhigeen siyaasad kooban oo aan muuqanayn oo qarsoon oo dadka shacbiga si khaldan wax loogu sheegayo way noo muuqatay waanu qaylinay waanu sheegnay ilaa maanta la wareegay oo maanta meelan ka soo celinaa aanay jirin waxaan u baahanahay hadaba siyaasadda sideedaba inaynu ka fikirno maxaa suurtagal ah maxaynu u baahanahay maxaa xamar weyn dacweys iyaga Sacuudiga tagay iyaga yiri sida u qoro warqada xalina wad maqlaysay waxa fariinta u gudbinay madaxweynahoodu inuu lahaa way dhoofsan karaan taasi de waxa way shaarica loo sheegaa waxa way hawl ku xiran xamarba maaha hawl soo dhameeyeen oo la soo qaateen Sacuudiga way dhoofsan karaan dadka dhagahooda lagu riday waa fariin siyaasadeed way laakiin eelka yaa dhigay iyaga dhigay dhibaatooyinka ilaa imanka inagu wadana waa kamid dhibaatooyin dhaqan dhaqaale kuwa siyaasadeed kuwa ciidan hore noogu geysteen waxaan dhan wax iska tirtirmaya maaha oo wax qoran way dhibaatadana inoo geysanayaan ilaa hadda socota afka macaan ileen walaalahin waa loo baahan yahay iyaga midnimada keenay haddana midnimo kala ha keeneen ruwaayadaas waa afka macaan way shaqadan ay qabanayaan waa shaqadii ugu khatarsaneed way arrimihii dibadda dhanbay hawl kaga wadaan dhaqaalaheennii bay hawl ka wadaan xaggana waxay ka leeyihiin iska dhoofsadeen xoolahooda iska watay marka dagaal ku beegan baynu u baahannahay mid siyaasadeed baynu u baahannahay in xukuumaddu ay u fikirto sida iminka dagaalku yahay ayaa loo baahan yahay cali maxamed jaamac cali fahad Saab TV Hargeysa adeega cusub ee shirkadda Dahabshiil iyo Dahab casriyeynta hanaanka cusub ee xawilaadda Dahabshiil haddaba macmil adeegan cusub ee casriga ah waxa uu ku sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida